beelaha Subeera wal ayaa Somaliland ku leh saameyn xooggan iyo miisaan siyaasadeed oo aan la yareysan karin. Waxa ay ku suntan yihiin go'aamiyeyaasha guusha iyo deegaamada jecel qarannimada Somaliland iyo jiritaankeeda. Xuduudda iyo kalsoonida ay muujiyeen madax dhaqameedku ayaa noqonaya mid taariikhda galaya. Dhawaanihii ugu dambeysayna 2 maalmood ayaa sidaas oo kale loo arkay xuduudda beelaha Subeera wal oo midaysan. iyadoo tani muujinaysa sida ay u dheelitirayaan siyaasadda Somaliland iyo deegaankani hadduu meel isku raaco miisaanka uu leeyahay. labada dhacdo ee muujinaya xuduudda beelaha Subeera wal dhinaca siyaasadda marka la eego ayaa ta koowaad ahayd maalintii loo goleeyay Suldaan Sabayste iyo salaadiyiinta kale ee ay isku garabka yihiin, sidoo kalena kalsooni buuxda ay u muujiyeen shacabka beelaha Subeera wal oo isku duuban, iyadoo ay buux dhaafiyeen hoolkii loogu talagalay in ay xafladaasi ka qabsoonto dhoolatuska ah. maalinta labaad ayaa ahayd markii ay go'aansadeen deegaamada Subeera wal inay yeeshaan xusbi u gaar ah kaasi oo uu hogaaminayay aqoonyahan Cismaan Badmaax. ururkan oo loogu magac bixiyay Mideeye, dhacdadan lagu daahfurayay urur siyaasadeedkii Mideeye ayaa noqotay mid muujisa xuduudda siyaasadeed ee ay leeyihiin beelaha Subeera wal, iyadoo kumanaan muujinaya miisaanka siyaasadeed ee deegaankani Somaliland ku leeyahay ay xafladii loogu wanqalayay ururkaasi ka soo qayb galeen, taasi oo meel iskala taagan la waayay. siyaasi Cismaan Badmaax oo majaraha u hayay urur siyaasadeedkaasi ayaa waxa uu ka soo gudbay marxalado badan iyadoo uu ku biiray kuwooda ugu saameynta badnaa urur siyaasadeedyada. siyaasi Cismaan Badmaax oo markii dambe noqday safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku biiray xisbiga Kulmiye iyadoo madaxweyne Biixi ay heshiis wada galeen, halkaasina shuruudo waaweyn ay ku kala saxeexdeen labada siyaasi. Cismaan Badmaax oo ah aqoonyahan iyo siyaasi ay beelaha Subeera wal xuduudooda ku soo bandhigeen xilligaasi ayaa la isweydiinayaa haddii urur siyaasadeedkiisu aanu ku biirin Kulmiye ma ka mid noqon lahaa 3 xisbi qaran ee haatan jira, iyadoo deegaamadaasi ay xilligaasi go'aansadeen inay helaan xisbi ka soo jeeda Maroodi Jeex, Saaxil iyo Gabil. labadan maalmood ayaa noqonaya kuwo isu eg oo ay beelaha Subeera wal muujiyeen saameynta siyaasadeed ee ay Somaliland ku leeyihiin.